waxaa la yiri nin leelkasa yuu eriyay oo nin kale uu ku bedelay arintaas aan rabaa inaan warbixin ka dhiibo ku warka sida xun u sheegayna inaan ayagana maartay aan hadal u faro bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa dad si been ah warar looga sheegay oo aniga la isaaray inaan ka qanciyo dad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo waxba dhibaato naga dhaxaynin ah yaan rabaa inaan warka asiga ka qanciyo qodobka koobaad waxaa la yiri nin leelkasa yuu eriyay oo nin kale uu ku bedelay arintaas aan rabaa inaan warbixin ka dhiibo ku warka sida xun u sheegayna inaan ayagana maartay aan hadal u faro ujeedkaygu waa kaas giridii magaca la yiraahdo markaan ka jawaabo waxaan ahaa taliye dugsi 20 jir oo meesha la yiraahdo dugsiga booliiskan joogay waxaa la ii keenay ciidan laga soo qaaday magaalada Boorame Buuhoodle Boorame aanan dhihin Buuhoodle iyo meesha la yiraahdo Laascaano iyo Ceyra Gaabo ciidan booliis oo laga soo qoraa la ii keenay ciidankaas dugsiga 20 jir ayaan mataqaanaa 3 bilood ku hayay tiradiisa 250 askari buu ahaa si nabad qabay dugsiga kaga baxeen ninka magacaan leh oo ninkan booskiisa lagu qoray markaan faalayar ka dhiibo wuxuu ahaa nin abwaan ah nin shaqada askarinimada aan qaban karin abwaan oo gabiya oo reegal dagoba wuxuu la qabsan waayay dugsigii iyo shaqadii socotay la qabsan waayay nin baalkan cagaarka cunana wuu ahaa marka shaqadii wuu la qabsan waayay waa anfici waayay aad uguma sii dheeraanayo maadaama shaqadii aydahayd uu la qabsan waayay dhowr biloodna aan meeshii bilna iyo wax ka badanna aan ku haynay ayaan waxaan fasaxnay inuu iska tago shaqadiis cidiisi aado markii nidaamkii ciidanku la qabsan waayay ninkii tababarkii la qabsan waayay saasaan ku dirnay taliye-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed markaas ninkii ahaa uu ogaa inaan shaqadaas saas uu ninka ku baxay wuu la socday waa generaalka ka soo jeedo baasha ayada ah oo booliiska markaas ku xigeenka ahaa taasoo baabkeeda waa saas nin midabta koor lagu eriyay ma ahayn markee kaligiis ma ahayn ciidanka inta la eg 250 askari oo saraakiil leh oo dabley leh oo saraakiil xigeen leh ayaa meesha ka baxday taas macnaheedu waa saas ninkii maartay si kale wax u qaato ka raali ahow warkuna waa noocaas aniga iyo reegal dagobna wax dhibaato ay colaadana ma dhaxyaalaan taas halkaas aan uga gudbayaa tan kale dadka Facebook wararka sida xun u sheegayana inayna ummadda isku dirin oo sida xun u sheegaya Facebook-yadani wax kan ka qalqaylinayana waxaan leenahay ummadda isku dirin dad Soomaaliyeed tiina dhibaato ka shaqeynina ayaguna intaas aan leeyahay